Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada cashir kooban oo aynu kaga hadli doono xeerka la yidhaahdo rest for links ama gaadhiga midigta ayaa kale gaadhiga bidixda. Qoraalkani wuxuu macneynayaa guud ahaan gaadhiga midigtu inuu ka leeyahay gaadhiga bidixda. Waxaanad ku garan kartaa meel aan lahayn calaamad isgoysyada ama meelaha ay baabuurtu ku kulmaan ee aan lahayn astaan ama ambal ishaaro amaba booliska la hagaya. Meeshaasi oo aan wax calaamado lahayn, meeshaas ayaad ku garan kartaa inaad ku jirto rest for links. Marka waa inay baabuurtu isku ixtiraamaan midig iyo bidix, gaadhiga midigta in loo fasaxo, gaadhiga bidixduna uu ka sugo wadada uu u fasaxo. Guud ahaan intaasi ayay macneynaysaa qoraalkaas meesha ku qoran. Calaamadan waxaa laga yaabaa inaad marar badan aragtay. Meesha noocan oo kale ah waxay macneynaysaa in aanay meeshan wax calaamad ka jirin ama astaamo baabuurta kala hagaysa. Haddii ay sidaas tahayna waa meel rest for links ah. Markaa ku talagal ama ku tasho inaad gelayso dariiq rest for links ah ama xaafado. Sidaas darteed waxaa lagaa rabaa inaad iska jirto gaadhiga midigta kaaga imanaya oo aad fursad siiso. Waana calaamad aad ku garan karto inaad gashay rest for links ama meelaha lagaga dhaqmo gaadhiga midigta in fursad la siiyo. Qoraalkani wuxuu muujinayaa in aad ku jirto meel rest for links ama gaadhiga midigta uu ka leeyahay gaadhiga bidixda. Inta badan ku arki maysid meelaha noocan oo kale ah ama calaamada noocan oo kale ah. Aniga ahaan inta aan gaadhi ku waday wadankan Jarmalka weli lamaan kulmin calaamad noocan ah oo meel ku qoran oo ay xasuusinaysa inay tahay rest for links. Laakiin waa qoraal jira ama qoraal ku xasuusin kara inaad rest for links xisaabsato. Waxaan u soo qaatay kaliya inuu yahay qoraal muujinaya inay halkan ka jirto nidaamka ama xeerka la yidhaahdo rest for links. Intaasunbuu muujinayaa, laakiin inta badan arki maysid wax noocan ah ama calaamad noocan ah oo meel kuugu dhegan oo kuu sheegaysa inaad ku jirto rest for links. Labadan sawir waa laba sawir oo muujinaya rest for links. Wax calaamad inooma muuqato, wax ishaare inooma muuqato, wax kale oo boolis ama traffic kala hagaya baabuurtuna inooma muuqdo. Markaas midkood sawirkan koobaad waa sawir wada afar gees ah oo afarta dhinacba baabuur ka iman karto. Sawirkan labaadna laba dhinac unbaa ina khuseeya, gaadhiga bidixda ka socda ee xaggeena aan u soconnaa iyo gaadhiga xagga midigta kasoo galaya wadada. Markastana waxaa hormaraya gaadhiga xagga midigta kasoo galaya. Saas darteed haddii aad wadato gaadhigan huruudda ah waa inaad fursad siisaa gaadhiga cas. Labada dariiq ama labada sawir ee noo muuqdaba markasta waxaa hormaraya ama hudnaanta leh gaadhiga casaanka ah. Haddii aad la kulanto xaalad noocan oo kale ah, waa xaalad wareer ah. Afartii dhinacba afar gaadhi baa taagan, midba mid buu fursad siinayaa. Tusaale ahaan gaadhigan cas midigtiisa waxaa ku beegan gaadhigan yelowga gaadhiga dheer. Gaadhigaasina gaadhi kale ayaa midigtiisa sii taagan, kaana kale cad ayaa midigtiisa sii taagan. Marka waa xaalad wareer ah. Xaaladda markay noocan oo kale tahay ee ay meeshuna tahay rest for links, waxaa loo baahan yahay si looga hortago inaanay shil ama dhibaato isku dhac meeshaas ka iman, in ay dadka darawalada ee baabuurta wada isfahmaan oo ay gacanta isku afgartaan ama system kale oo ay ku wada xidhiiri karaan, midba midka kale uu fursad siiyo. Haddii aynu tusaale usoo qaadano, kasoo qaad inaan wato anigu gaadhigan cas ee xaggan hore yaala. Gaadhiga cas haddii aan wato, fursadda ugu horeeya waxaan siin lahaa gaadhiga cad ee bidixdayda ah si aan xaaladda u furfuro ama aan xal ugu helo. Waayo haddii aan gaadhiga midigtayda xiga fursad siiyo, isna ka kale ayuu kasii sugayaa inuu fasaxo. Markaa si ay sheekadu usoo furfuranto ama ay gaadhiyaashu u kala dhaqaaqaan, gaadhiga bidixdayda taagan ayaan fursad siinaya, anaa ka istaagaya. Gaadhiga cad markuu gudbo waxaa fursad haysta gaadhiga huruudda ah ee greenka fallaadha greenka ah horey ka taalo. Kabacdina gaadhigan ayaa gudbaya casaanka ah. Muhiimadda guud waxay tahay kaliya in laysfahmo. Haddii ay xaaladdu sidan oo kale kaa noqoto, uu gaadhiba gaadhiga kale uu kusii xanibnaado. Saas darteed inay darawalada baabuurta wada isfahmaan ayaa loo baahan yahay, iyaguna fursad isa siiyaan. Intaas waxay noogu eg cashirkii koobnaa ee ka hadlayay rest for links. Cashirka kan ku xigana waxaynu kusoo qaadan doonaa haddii alla idhaa muuqaal toos ah oo aynu soo mari doono dariiqyo ka mid ah dariiqyada rest for linkska. Haddii ay jiraan wax su'aal ah ama meel aanad fahmin, fadlan noogu reeb commentiga hoose. Waxaan samayn doonaa barnaamij aan su'aalaha uga soo jawaabno. Dhammaantiin waad mahadsantihiin.
tan iyo cashirka dambe nabadgelyo.